كنت wanaagsan dowdiyaal kula soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah xogtii ugu dambeysay kulan fila Soomaaliya ku dhex maray madaxweyne Farmaajo iyo maamulada taageersan dalab uu madaxweyne Farmaajo u gudbiyey Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaan idiin soo gudbin doonaa. Wararkii ugu dambeeyey arrimaha doorashada, saddex qodob oo bannaanka keentay awoodda ay doorashada ku inqilaabeen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada kadib shirkii ay Muqdisho ku yeesheen. madaxweynaha Puntland oo Muqdisho ka bilaabay ololihiisa doorashada iyo kulan uu la qaatay safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya, murashaxnimada Dani oo sii xoogaysanaysa iyo midowga murashaxiinta oo weerar ku ah. wararkeena kalena waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalo xalay ka dhacay beledweyne, xiise dagaal oo taagan xilli militari gaduudsan ay la wareegeen magaalada, waase sidee xaalka beledweyne ee saakay, iyo dagaalka Cumar Finish iyo Xijaar oo weji kala yeeshay xilli Cumar Finish uu gaadiid dagaal iyo ciidamo fara badan ka keensaday gobolka Shabeellaha Dhexe. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doona barnaamijka insha Allah. waana subax isniina 23 bishii 8 Agoosto sanadka 2021. barnaamijka wararka Soomaaliya oo midaan kusoo gudbina dhammaan dhacdooyinka dalka, qodobada wada ka qayb qaadida booliska dalka, inagoo ka dhiraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taas nala fahantaane. fadlan nala faafiyo wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinkoo ku sheergareynaya baraha bulshada. mahadsanideen. aynu ku bilowno wararkeena. madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu dalab u dirsaday maamul goboleedyada taageersan sida Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle. wararka magaalada Muqdisho gaar ahaan fila Soomaaliya ay kulan ku yeesheen madaxda taageersan fila Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. kulanku oo ahaa mid qarsoodi ah isla markaana dhammaan baa laga qariyey warbaahinta qaybaheeda kala duwan, ayaa waxaa la sheegay madaxweyne Farmaajo uu mar kale ku celiyey maamul goboleedyadaas sidii ay uga shaqayn lahaayeen in dib loo doorto. iyadoo shalayto magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii ee arrimaha doorashada looga hadlayay gaar ahaan habraacyada doorashada golaha shacabka, ayaa waxa uu madaxweyne Farmaajo ku sii adkeeyey qoor lafta garan iyo sidoo kale Guudlaawe ee doorashada si weyn kala shaqeeyaan. inta hadda muuqata maamul goboleedyada maamulka Koonfur Galbeed ayaa ah maamulka sida dhabta ah uga shaqeeya qorshaha madaxweyne Farmaajo, inkastoo Cali Guudlaawe weli aan la arkin tallaabadiisa, balse qoor ayaa isagu sameeyey doorasho dhexdhexaad ah, waana doorashada aqalka sare oo xildhibaano mucaarad ah iyo kuwo markaasi fila Soomaaliya taageersanba uu soo saaray. si kastaba ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa si aad ah ugu ololeynaya in uu mar kale dalka taladiisa dib u qabsado. dhinaca kale kulamadii ugu badnaa ayaa xalayta ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo murashaxiinta ay markaasi shukaamin ku bilaabeen maamul goboleedyada dalka oo weli iyagu Muqdisho aan ka bixin. wararka qaar ayaa sheegaya in uu bilowday kulamo hoose amaba kulamo hoosaadyo ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada iyo xubnaha midowga murashaxiinta la magac baxay kadib khilaafkii soo kala dhex galay maamulada Puntland iyo Jubbaland oo isku garab ah iyo midowga murashaxiinta mucaaradka oo iyagu markii hore isku dhinac ahaa. waa hagaag qaybaha hore ee wararkeena ayaad la socotaan. iminkana waxaynu eegaynaa saddex qodob oo bannaanka keentay in doorashada ay inqilaabeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo weliba sidoo kale maamul goboleedyada dalka ka jira ee shanta ah kadib shir ay maalmihii lasoo dhaafay Muqdisho ku lahaayeen oo ay soo gabagabeeyeen. golaha wadatashiga qaran ayaa shirkoodii Muqdisho ee labada maalin socday waxay ka soo saareen warmurtiyeed lagu faahfaahiyey habraacyada doorashada, dhaqaalaha iyo amniga, iyadoo awoodaha ay qaybsadeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada. arrimaha ugu muhiimsan ee warmurtiyeedka ku jira ayaa ah in awooddii maamulka doorashada dadban ay inqilaabeen lana wareegeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo madaxda maamul goboleedyada ee shanta ah. qodobada soo socda waxay muujinayaan sida doorashadii isugu bedeshay xulitaan ay maamulayaan siyaasiyiin halkay ahayd inay guddi madax bannaan hawshaas iyagu qabtaan. arrinta ugu horeysa waa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo la awood tiray. guddigan oo dhowaan soo saaray habraaca doorashada xildhibaanada golaha shacabka waxaa awoodiisii oo dhan lagu wareejiyey guddiga heer maamul goboleed ee ay u taliyaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada, waxaana awoodihii guddigan ku soo haray kormeerid, ogaanshaha maamulka miisaaniyadda doorashada iyo keliya sharciyad iyo shahaadasiinta xildhibaanada. arrinta labaad waa ra'iisul wasaare Roble oo la wareegay maamulka doorashada ee Somaliland. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble waxa uu la wareegay maamulka doorashada labada aqal ee Somaliland oo muddo dheer khilaaf ka taagnaa,
wuxuuna isku qoray inuu yahay hubiyaha iyo korjoogtada doorashadooda. waxaa master Roble ay madaxda maamul goboleedyada u ansixiyeen inuu maamulo doorashada xildhibaanada Somaliland iyo Banaadir, iyadoo ay muuqato inay uga bedesheen inay yeeshaan awoodda maamulka doorashada xildhibaanada laga soo dooranayo maamuladooda. sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa uu ku jiraa dhammaan howlaha doorashada sida maamulka miisaaniyadda doorashada, amniga iyo hubinta ergooyinka doorashooyinka ka dhacaya magaalada caasimadda Muqdisho. qodobka kale ee saddexaad waa madaxda maamul goboleedyada oo si dadban ula wareegay doorashada dadban ee dalka ka dhacaysa, iyagoo si aan markaasi horey loo arag ula wareegay doorashada aqalka sare ayay markale madaxda maamul goboleedyada si toos ah u maamuli doonaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka, waxayna u marayaan guddiyada doorashada ay magacaabeen oo markaasi gacanta loo geliyey awoodda doorashada. lama oga sida guddiga doorashada heer federaal ee awooddii laga qaaday uga jawaabi doonaan arrintan, laakiin waxaa ka mid ah xubno ku xiran kana amar qaata madaxda maamul goboleedyada ee dalka markaasi ka jira. wahagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya ayaad la socotaan, Warqad TV ayaad naga daawanaysaan. iminkana haddii aynu eegno kulamo uu magaalada Muqdisho ka bilaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. madaxweynaha maamulkaas Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo magaalada Muqdisho weli ku sugan ee caasimadda Soomaaliya ayaa qaabilay safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya gabadha la yiraahdo Kate Foster. kulan gaar ah oo ay yeesheen ayaa looga hadlay arrimaha Puntland iyo guud ahaan xaaladda dalka Soomaaliya, gaar ahaan marxaladda lagu jiro ee kala guurka ah iyo arrimaha doorashooyinka ee waddanka. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa uga mahad celiyey safiirka Ingiriiska dadaalka ay dowladda Britain ku bixinayso howlaha amniga iyo doorashooyinka Soomaaliya. madaxweyne Dani ayaa waxa uu ugu dambeyntii markaasi sheegay in uu kaga mahad celinayo dowladda Ingiriiska taageerada ay siiso dowladiisa Puntland. Dani ayaa wuxuu magaalada Muqdisho uga qayb galay shirkii golaha tashiga qaran ee warmurtiyeedka laga soo saaray, waxaana la filayaa in intuu ku sugan yahay uu kulamo kale la qaato xubno ka tirsan beesha caalamka. si kastaba madaxweynaha maamulka Puntland ayaa si aada waxa usoo xoogeysanaya wararka sheegaya inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya, iyadoo dhinaca kale ay weerar ku hayaan midowga murashaxiinta oo markii hore ay isku xulfo ahaayeen islamarkaana ay doonayeen in ay xildhibaano ka helaan. maadaama hadda uu murashax yahay Dani, arrintaasi meesha way ka baxaysaa maadaama dhinacyadu ay markaasi isku mowqif ka noqonayaan kursiga filla Soomaaliya. qaybaha dambe ee wararka Warqad TV ayaynu isla soo gaarnay. haatana magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa xalay ka dhacay banaanbax ay dhigayeen qaar ka mid ah shacabka beledweyne looguna soo horjeedo in madaxweynaha Hirshabelle uu halkaasi tago, iyadoo dagaal kooban dhinaca kale uu ka dhacay magaalada kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii militari ay la wareegeen xalayto magaaladaasi. banaanbaxa ayaa waxaa dhigaya boqolaal dadweyne ah oo taageero ka helaya jabhadda uu hogaaminayo Genaraal Xood iyo militari kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, waxayna isugu soo baxeen afaafka hore ee iridda Lamagalaay iyagoo ku dhawaaqaya erayo kalena maamulka Hirshabelle. nabadoon cilmi hagar oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo banaanbaxa ka hadlay ayaa muujiyey sida ay uga soo horjeedaan maamulka uu hogaamiyey Guudlaawe, waxauna sheegay in gaajo gobonnimo leh la qaadan karo laakiin dharag gudnimo ah aan la qaadan karin, sida nabadoonkaas uu sheegay. geesta kale dagaal kooban oo gudaha magaalada beledweyne waxa uu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad uu watay Genaraal Xood kadib markii generaalku uu ciidamo la soo galay, waxaana dagaalka uu markaasi sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac markaasi soo kala gaartay. banaanbaxa iyo dagaalka ka dhacay magaalada beledweyne ayaa waxaa kasii horeeyay ciidamo la wareegay xarunta maamulka ee Lamagalaay, kuwaas oo kasoo horjeeda madaxweynaha Hirshabelle oo la sheegay in uu ku wajahan yahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, balse waxaa muuqanaysaa in qorshihii uu ku tegayay Cali Guudlaawe magaaladaas iminka fashil uu markaasi kusii dhow yahay. ugu dambeyntiina warar la helaya ayaa waxay sheegayaan in gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish uu ciidamo militari ah iyo gaadiid dagaal ka dalbaday gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii ay sii xoogeysteen xiisada u dhexeysa isaga iyo taliyaha booliiska. xiisadan ayaa ka dhalatay kadib markii taliyaha ciidanka booliiska uu amar ku bixiyey in awood ciidan lagu joojiyo dhismaha dhul dan guud ah oo nadaafadda qaranka
ay lahaayeen oo ku yaala nawaaxiga dekedda muqdisho. arrintan ayaa waxa ay sababtay inay si weyn isugu khilaafaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar finish iyo weliba sidoo kale ee taliyaha booliiska tali xijaar ayaa gudoomiyaha gobolka ku amray joojinta dhismahan iyo xarika jarka, waxaana la sheegay in diidmada gobolka kadib tali xijaar uu ku amray in awood ciidan lagu joojiyo hawsha halkaas ee ka soconaysay. arrintan ayaa waxay muujinaysaa heerku uu gaarsiisan yahay xiisada u dhexaysa tali xijaar iyo cumar finish, maadaama cumar finish uu dalbaday ciidamo iyo weliba sidoo kale ee gaadiid dagaal. qodobkaas ayaa ugu dambeeyey warkeena. tan iyo warkaan war lamida intaynu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad.